fadhiyo kadhiga karanaa qoska xanuunada naafadiyo kadhiga karanaa qoska naftiisa kala fukara intay noloshiisa wiiqin talaalka nabadgasho koortaga nuxuusyadiisa intay noloshiisa wiiqin talaalka nabadgasho koortaga nuxuusyadiisa cuntada noocuu helana lagu rido weel nadiifa nijaasa ka faraxashee koone farahoo nadiifa kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkaad nagala socotaani waa shaashada telefishinka qaranka Soomaaliland ku soo dhawaada barnaamij gaar oo ku saabsan xuska maalinta biyaha adduunka oo lagu qabtay magaalada Boorama xafladani ayaa loo qorsheeyay inay sanadkani loo bedelo wacyigelinta bulshada si looga wacyigeliyo inay ku dadaalaan nadaafadda loona qorsheeyay in la falaxasho si looga hortago cudurka dunida saameeyay ee coronavirus wacyigelintani ay soo qaban qaabisay wasaaradda horumarinta biyaha gobolkani Awdal iyo shirkadda biyaha Boorama ee Shaaba ayaa waxa ka soo qayb galay gudida ka hortagga caabuqa coronavirus ee gobolka Awdal hadaladii kala duwanaa ee mas'uuliyiintu halkaasi ka jeediyeenna waxay u dhacday sida tan dhamaantiin maanta waxa farxad inoo ah inaynu xusno maalinta biyaha adduunka oo adduunka oo dhan laga xusayo sidaad ka warqabtaan biyuhu waa noloshii ummadda dad iyo wax nool iyo waxaan nooleynba biyay u baahan yihiin sanad walba halku dhig baa biyaha adduunka marka la xusayo la qaataa oo la doortaa sanadkan halku dhigga la qaatay waxa weeye biyaha iyo cimilada waxaad ka warqabtaan in cimilada adduunku wax iska bedelayaan kulaylkii adduunku in wax iska bedelayo oo adduunyadu ay sii kululaanayso waxaad ogtihiin in taasi ay keenayso in roobabkii yaraadaan oo biyihii hoos ay u dhacaan oo ay saameyn weyn inagu hayso cimilada adduunka ay isbedelaysaa waxaana waajib inagu ah inaan la soconno cimilada isbedelaysa oo wax laga qabto hadday noqoto dhirayn hadday noqoto biyahan run-ofka ee yaacaya in wax laga qabto runtii messajka caalamku qaatay markaad eegto iyo waxa aan imika u soo dedejinay inaan hadalno waxaan rajaynaynaa daqiiqada ka bacdi in gugii noo bilaabmo guga ay noo bilaabmay maxaynu ka qabsan doonaa biyaha inoo daaya harvesting maxaynu samayn doonaa si biyaha xoogga leh ee dhulkiina sii jeexi doona si sahlanna badda u tegi doona maxaynu ka qabsan doonaa sanadkan maxaynu sanadka dambe ka qabsan doonaa maxaynu biyaha dhulka gelin doonaa si aynu marka dambe kayd inoogu noqdaan oo aan la soo baxno waxaa kaloo xusid mudan in sanad walba markuu roobku sidaa u bilaabmo xanuunaa ka dilaaca dad badan baa balleeyo iyo berkedo madhnaa oo biyihii galeen cabbi doona dadkaa biyaha aan nadiifta ahayn cabbi doona markay raxmaddu inoo timaadno waxaan leenahay biyo aan nadiif ahayn ha cabbina kolley isku duwii caafimaadka oo inoo faahfaahin doona khataraha ka iman kara biyaha wasakhaysan ee la cabo ayaa iga dambayn doona marka koowaad allah baa mahadle ilaahay baan uga mahad celinaynaa maanta aynu isugu nimidnay maalintii xuska markaa biyaha maalinta xuska loo asteeyey adduunyadoo dhan ay u qaatay waa maalinta biyaha adduunka kale halkan waxaa maanta loo soo qaatay waa biyaha iyo isbeddelka cimilada waynu ogno adduunyadoo dhan waxay ka qayliyaysaa markaa climate changeskan ama isbeddelka markaa cimilada markaa insha allah waxaan rajeynaya innaguna waxaan nahay dee waddamada ugu marka caalamka loo eegayo waddamo dhaqaaloogu aada u hooseeyo laakiin waxaan aada alxamdulilaah inaan haddana ka gobol ahaan degmadan maanta aynu joognay ay tahay meelaha lagu faano marka biyaha la idhaahdo oon aada uga mahad celinaya shirkadda Shaaba adeega biyahaynu markaa ka helno waxaan aada uga mahad celinaya wasaaradda horumarinta biyaha oo hawshan marley iyadoo dee gacanta ku haysa biyaha dalkoo dhan aad baan uga mahad celinaya biyuhuna
se laga dhawaajiyo waa nolosha dhan aadamaha jidhkiisu 75% wuxuu ka kooban yahay waa biyo waxaad arkaysaan adduunyada imika xanuunka xataa ay ka qaaliyeso nadaafada iyo waxa kale oo dawada dhan waa maxay inaad jidhka biyo badan soo geliso biyo badan aad yadnaad isticmaasho inkastoo dhakhtar joogo laakiin mar walba xanuun kastoo feerisa waxa uu dawaa inaad jidhka biyo badan la geliyo si markaa uu la dagaalami karo jidhku marka waxaan leeyahay aad baan u hambalyeynaa dhammaan cid kasta oo xafladan soo qaban qaabiso wasaaradda biyo ka mid tahay bulshadana mid baan odhan lahaa innagana mid baa ina saaran bulshada siduu sheekh maxamed xasan war ka dhawaajiyey waa inay nadaafadda ku dadaalaan innagana waxaa xukuumad ahaan ina saaran inay bulshadu ama dhammaan meel kastoo baadiyaha ka mid inay helaan biyo nadiif ah waxaynu ognahay biyaha nadiifta ama waa ground waterka biyaha ku jira dhulka hoostooda ah inay kaa inaga helaan waa mid waajib markaa inaga inagu ah iyaguna inay nadaafadda ku dadaalaan waa waajib guud oo ah si ay xanuunada iyo wax kastoo dhibaataa uga gaadhaan waxaa maanta noo sharafa inaan ka qayb galno maalinta loo asteeyey maalinta biyaha adduunka March 22-keeda horta kolley caafimaadka annaga biyaha la-aanteed wax caafimaada oo noo suuro galayaa ma jiro labada cudur ee ugu waaweyn ee la tacaalno waxaa keena ama wax biyo la-aan ka yimaada ama wax biyo xunun ka yimaada waxaan aada ugu mahadnaqanaa shirkadda shaaba oo kulley wax wajaan isku taxallujisay oo naga tageysay biyihii inaanu biyo helno welibana noo tageysay oo biyo nadiifa oo aanu ka horeysanayn magaalada iyo gobolka intii gaarsiin karaysa gaarsiisay waxaan aada ugu mahadnaqi lahaa dadaalka ay geliyeen kulley runtii waxaan leeyahay inagu maadaama muslim nahay biyuhu inaga nolol keliya maaha biyuhu waxa wajaan waa waxa ugu muhiimsan nolosheena sababtoo ah nolosheena waxa ka muhiimsan in ilaahay garanno ilaahayna waxaan ku garanaa cibaadadiisina waxay u baahan tahay biyo istijadii nadaafadii salaadii dhammaantood waxay yahay biyo waqtigaan joogno maanta waa waqti ay jiro kulley cudurkan meel walba gaadhay COVID-19 la yiraahdo cudurkaas xalkiisa maanta loo hayaa waxa weeye waa ka hortagiisa runtii wuxuu iskugu shubanayaa in biyo nadiif ah la helo waxaan mar labaad u mahadnaqayaa inaanu maanta biyahaas wax warar ka qabin waqtiyada la dagaalamana cudurkaas jira ee xaaladda degdega wata qaybteeda ugu muhiimsan oo hygiene and sanitation la yiraahdo kulley waa ka hortag cudurku sidiisuba daweyniyo wuxuu leeyahay ka hortag waxaan aad ugu mahadnaqanaa inaanu hygiene and sanitation gaar ahaan xanaanooyinka magaalada Boorama inay ka hagar leeyihiin biyo sababtuna ay tahay shirkadda shaaba iyo wax weeyaan qolooyinka oo la gooday iskaashanayaan anigu waxaan markaa u mahadcelin lahaa kulley cidii hawsha nagala qayb gashay waxaan ku soo gabagabayn lahaa maadaama maanta aan ku celcelinay muhiimadda biyahana waa inaan ilaashanaa Boorama waxa weeye biyuhu maadaama ay ku badan yihiin had iyo jeer waa qasaarintooda iyo daadintooduna waxa weeye waad arkaysaa meel walba way gaadheen waliba guryaha waxaan leeyahay biyaha la ilaashado waa nimco Ilaahayna siiyey nimcada haddaan ku shukriyo in ilaasho weynana waa la inaga qaad biyuhu horta waa nolosha bini'aadanka ama waa nolosha makhluuqaadka Ilaahay abuuray waa nadaafadda nin kasta biyuhu u baahan yahay qofka bini'aadanka marka uu kaco aroortii waxa ugu horeeya uu isticmaalo waa biyo hadday tahay musqusha uu galo haddii ay tahay muxuu ahaa inuu fool dhaqdo weysadii waa ka bilaamaysa biyuhu qofna sida uga maarmayaba maantana xanuunkani muxuu ahaa adduunka oo dhan hadidaya ee muxuu ahaa coronavirus xanuunkaasi dawadiisii waa nadaafad baa la yidhi qof walba waa kala leeyahay isnadiif la leeyahay nadaafaddana diinteenna way ka warramaysaa annadaafatu nisfu diin nadaafaddu waaba diinta barhkeeda weeyaan waxaa habboon inaan qaadanno tacaaliimta islaamka inaan qaadanno dhakhaatiirtu waxay noo soo jeedinayaan inaan nadaafadda alwiqaayatu khayru min alcilaaj ka hortega ayaa ka fiican ka dabatega inaan qaadanno muxuu ahaa waxaa diinteennu islaamka ina farayso dad badan baa meelaha kaga sheekeeyo dhaa moogtahay xanuunkan waa cuqaabo loo soo diray muxuu ahaa gaaladu ku dhacaya waar bini'aadanka oo dhan ku dhacaya gaal iyo muslim caafimaadku waa isku mid uu ku wada dhacaya waxa weeye waxaan xanuun markuu yimaado ma kala le gaal iyo muslim ma kala le waa inaan is ilaalino waa inaan qaadanno nadaafadda dadka nadaafadooda ay liidato waa inay ku dadaalaan nadaafadda gaar ahaan weysada iyo muxuu ahaa dee shanta saamood ninka tukanaya waaba nadiif lahayn waa inaan nadaafadda ku dadaalno nadaafaddu waxa weyn qiimo badan bay leedahay in allaha yuhibbu tawaabiin wa yuhibbu almutatahhiriin ilaahay wuxuu jecel yahay dadka had iyo goor isnadiifiyo ayuu jecel nadaafadda ilaahay baa jecel mar hadduu ilaahay nadaafadda jecel yahayna waa nolosha waa inaan jeclaano weeyaan marka aan waxaan leeyahay maadaama biyahaasi ay maanta mutawafir yihiin oo meel walba ay biyaha shaabay naga dhargisay waar inaguna aan nadaafadda ku dadaalno
sideedaba nadaafad darrada 100 xanuun baa ka dilaaca haddii nadaafad la waayo 100 xanuun baa imanaya qashinka hadduu meel yaallo haddii nadaafadda la waayo haddii cunto nadiif aad cuni weydo haddaad meel nadiifa seexan weydo haddaad isnadiifin weydo xanuun kulle wuu imanaya waayo nadaafad darrada ka imanaysa marka ilaahayna naga badbaadiyo xanuunkaas adduunka oo dhan ka qaylayo waxaan leeyahay waa inaan ku dadaalno nadaafadda aan ku dadaalno waxaan ku yar darayaa xoogaa aadaabta islaamka ah dadku markay hindhisoonayaan ama ay qufacayaan waxa habboon inaad sooftiga qadato oo afkaaga saa u yar qabato ama haddaad ciidamad sita saa aad u yar daboosho qofkii ugu dhex muxuu ahaa hindhisoonayaa ama uu qufacaya waa inaad gaar u yar kacdo ood is yar ilaaliso waayo waxaa jirta qofka walaalkaaya lama dhibo had iyo goor diinteennu waxay diidaysaa qofka in la dhibo munaasabadan aan maanta isugu nimidnay oo maalinta xuska biyaha adduunka waa munaasabada dunyada oo dhani ka dabaaldegayso dabaaldeguna maaha keliya inta meel la isugu yimaaduunin dee shaah la cabo ama kooka la cabo laakiin waxaa loogu maaragtaa doortay maalintaasi in fariimo muhiima la isgaadhsiiyo siduu iskuduwa markaa ka dhawaajiyey fariinta ugu weyn ee sanadkan la gudbinaya waxay tahay in laga hadlo biyaha iyo isbeddelka cimilada waxaa intaa inoo soo raacay waxay ku soo beegantay wakhti aan munaasabad la dhigi karin oo ah xanuun aada u baahsan oo maaragtaa ka jira dhulkeenna ka jira adduunkana ka jira innaga inama soo gaadhin weliya dee adduunka ka jira ilaahay naga haya inta uu hayana ka badbaadiyo waase maaragtaa sidaa iskuduwaha caafimaadku sheegay waxyaabaha lagaga hortegayo waxaa ka mid a maaragtaa dee biyaha ka mid a iyo nadaafadda ka mid a annaga intaa waxaa noo dheer markaa haddaan shaabannahay inaan dadweynaha la socodsiino bal xaaladda biyuhu halka ay marayaan kullay guddoomiyaha isna aada uga hadli doona laakiin aan u farsamo ahaan waxaan jecelahay inaan dadka ku dhaqan boorama hadday xukuumad tahay hadday shacbi tahay hadday culimaadudiin tahay hadday cid walba tahay inaanu u sheegno xaaladda biyaha halkaanu taagannahay oo markaana ay la socdaan maaragtaa biyaha sidaa muhiimka u ah in maxaydaanay haddana ay maaragtaa dee kulley carqaladuhu ay badan yihiin magaalada boorama waad arkaysaan idinka warrami maayo waynu u wada joognaa dadkii aad bay u kordhayaan korarkaa dadweynaha waxaa keenaya deganaanshaha horumarka tacliinta iyo biyuhoo kowka ah helitaankaa biyaha oo kowka ah laakiin waxaad ogaataan markuu qof soo kordhaba ama marka ilbaxnima soo kordho oo hoteello waaweyn iyo jaamacada waaweyn iyo irshado waaweyn la dhisaba baahidii biyuhuna way kordhaysaa biyaha boorama waxay ka heshaa laba dhinac bay ka heshaa dhinac weli qabyuu inaga yiho waa galbeedkaas waad arkaysaan mashruuciina dee carqalad baa ku yar timid dee waxaan rajaynaynay inuu si degdegay noo soo gaadho qaybta bariguna waa qaybta ay magaaladuba ku socoto waxaan doonaya inay dadka maaragtaa la wadaagno haddaanu nahay shaaba in kororhka dadweynaha iyo baahida biyuhu mar walba ay kala horreeyaan sanadkii hore wixii aan daboollay sanadkan wuu nagu soo jeestay waxaa loo baahan yahay sanad walba in boqolkiiba 12 13 11% la kordhiyo biyaha sanad walba markaa sanadii hore waxaan ku dadaali jirnay kororhka dadweynaha iyo magaalada fidaysa darteed inay mar walba 2 ceel ama 3 ceel noo qodnaadaan oo aanu markaa magaalada ku soo xidhno waxaan markaa dadka laakiin u sheegaynaa sanadkan halkii aan isku haleynaynay aan islahayn maaragtay xagaagan ay noogu daran waad garanaysaan waqtiga biyuhu ay maaragtaa baahida biyuhu aad u badan tahay waxaanu ku talagalnay in mashruuca galbeedku ilaa juun ilaa julaay uu soo gaadho magaalada waad arkaysaan dibadhac weyn baa ku yimid markaa annagu qayladhaan meel walba aanu dirnay hadday xukuumadda tahay hadday wasaaradda maaragtaa arrinkan dee u xil saaran tahay biyaha waxay boorama u baahan tahay intaan la gaadhin xagaaga in 1,000 cubic mitir ilaa 1,200 cubic mitir oo biyaha lagu soo daro taasina waxay dhalinaysaa in la helo meel degdeg looga heli karo arrinkaas marka waxaan leenahay sanadkan bal dawladdu boorama ha u hagar baxda labada ceel ha u qoto annaguna haddaan shaabanahay sidaa iskaduuha caafimaadku ka dhawaajiyey iskuduuha biyuhu iyo ninkii iskuduuhii waxbarashaduba xanuunkan ka hortagiisu waxa u badan in nadaafadda la ilaasho nadaafaddiina waa biyaha marka waxaan maaragtaa intaa idinku sheegayna annagu had iyo jeer wixii dawladdu noo dhiibto inaan hagaag u maamulno oo weliba aan sida ugu wanaagsan u maamulno waa mas-uuliyaddeeda mas-uuliyadda annagu mas-uulka nahay waa taa beri dhoweyd warbixin baa maaragtaa la sameeyey waxaa lagu sameeyey hay-adda unisef inta ay caawiso oo dhan ama soomaaliya wixii laisku oran jiray ha noqoto ama adduunyada kaleba ha noqotee 170 dal bay ka shaqeeyaan
23 gooboodoo biyuna waxay ka shaqeeyaan dalkii hore Soomaaliya loo jiray ama Soomaaliya ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto shaaba waxay noqotay xaggii maamulka taw horeysa warbixinta waxaan jecelnahay kulley dadka maaragtay saxaafadda waanu loo wadaagi doonaa waxa kale ay noqotay shaaba adduunyada markii loo compare gareeyay standardada ama performance indicators wax la yiraahdo kuwii ugu horeeyay bay la garab istaagtay oo qaarkoodna waliba ka fiicnaatay marka taasi waxay keenaysaa dadku in badan baa wax laga yaabaa in shaaba qalad ka fahamsan yihiin annaga mas'uuliyadeedu waxa weeyaan in dadka wixii la noogu dhiibo sideeda ugu maamulo oo aan ka ilaalino in siday waqtiyada hore dhici jirtay sida ay magaaladu taagan tahay la yiraahdo biyo ma jiraan maanay dhicin taasi dadweynaha waxaan markaa ka codsanaynaa inay shaaba ka caawiyaan waxyaabaha maaragtaa biyahan waxa lagu helayaa waxa weey markay dadku hagaag isaga bixiyaan biyaha ee hagaag wala macaamiloodaan waxaad moodaa maaragtaa in kulley maaragtaa dadweynaha ay aad maaragtaa arrinkaani u fahamsadeen madaxda nala shaqaysana waxaan ka codsanaynaa in maaragtaa arrinka ay aad u eegaan maamul wanaag adduunyadii dhan baa noo qirtay deeboor maraha noo qirto haddii maaragtaa dadkii oo dhan noo qireen way hay'adihii noo qireen saxaafaddana waxaanu sheegaynaa war anagu waxa uma baahnin ma garanaysaa waxaan aan ahayn in la naga sheego inta aan nahay uu naga sheega inta adduunyadu nagu tilmaantay naga sheega marka dawladdan waxaan ka codsanaynaa labada ceel ee aanu martida uga nahay ee aanu ku badbaadinayna dadka waqtiga xagaaga in maxaydaan ay iyaguna maaragtaa siiyaan haddii wasiirka tahay haddii madaxweynaha tahay xanuunka alwiqaayatu khayrun min alcilaaj iska ilaalinta ayaa ka habboon isdaweynta iska ilaalinta waxay noqotay laba nadaafadoo la ilaaliyo iyo iyadoo la kala baaho idinku qodaal baa nahoo jinqi iyo tabaaqil baa kala jira jinqigu waa marka hadhuurku maaragtay isku soo ururo wey tabaaqilkuna waa markuu kala teelteelka yahay aan tabaaqil noqon oo yaynaan jinqi noqonin taasaan iyadana ku talin lahaa dhinaca biyaha nadaafaddii waa sax halla maydhaa la yidhi laakiin taa macnaheegu maaha halla baytimaaliye maaha biyaheennii aan tashiilanno nadaafadeenniina aan hagaajisanno labadaa aan isku darro ta kale waxa weeyaan baahida biyaha iyo boorama alxamdulilah meelaha ugu biyo fiican baynu ku jiraa horta adeeggii waa halkaa la sheegay oo dee 170 dawladood baa la yidhi oo goobood baa la yidhi oo adduunyada kuwa ugu fiican baad ka mid tihiin waa wax ilaahay lagu xamdiyo waa mahadnaq un weeyaan kibirna nama gelinayso isfaanfaanna iskuna bogi mayno ilaahu baa noo mahadnaqay idinkana waxaan idinka codsanaynaa taa inaydin maaragtay noo aqoonsataan xukuumaddana waxaan sheegayaa annaga iyo xukuumadda annaga iyo shacbiga labuun baa naga dhexeeya waa qiimaha biyaha aan ku iibinno iyo adeegga labadaa naga dhexeeya ta adeegga waa taa dee lanooba qiray ta qiimahana wax weyn ma saarno taasina muran badani kama jiro foostada intaan siino waa 2,000 iyo dhalada yaree biyaha ah ayaa isku qiimo ah dee markaa taasina qiimo aanu isku dilnaa meeshaa ma jiro biyuhu waa baahi bini'aadmi weeyaanoo lacag buuran lama saari karo dad baa waxay dhahdaa shaaba way dhereegtay oo ruuxa maanaan dherkin daara dhaadheer ayaa amaana kale noo arki lahaa ama shirkaddaba guud ahaan lagu sheegi lahaa midna ma jiraan idinkaan idiin adeegnaa intaan helaana $100 ee shirkadda u soo xirooda 93 dib waxay ugu noqdaan biyaha ayay dib ugu noqdaan wixii soo hadha waa $7 baa boqolkii ka soo hadha intaasina haddana dib waxaan ugu celinaa maxaan ku dhahdaa ceela raadin iyo maxaan ku dhahdaa ceel la qodayo ka qaybgelistiis iyo kaalmo bulsho iyo de nimankii ganacsatada ahaa hantida noo dhiibtay wax yaroo fara ku tirisa oo nidhaahno waa idiin faa'iido oo marmarka qaarkood annaa waxba siinina afka ka sheegta aan nidhaahno taasina waa taa shirkadda iyo xaalkayga kaga hadlaayo xukuumadda waxaan leenahay annaka wax isku kaydiri karo keliya waa haddii biyo la waayo ama ay biyo yaraadaan xilkan xukuumadda ayaa leh xukuumaday xilkayga waan ka soo baxnay hanagu baylihinina dhinaciina hanagu baylihinina
taasina xukuumaddan leeyahay ta ugu hore oo ay ugu horrayso labadaa ceel imikayda ka codsanayno taasoo qaylada xagaaga naga dabooli doonta waanad mahadsantihiin unisef oo ah garabka midig ee shaaba ama biyaha boorama oo ay naga joogto nimco waxaanan usii hormarinayaa nimcooy mahadsanidin jazaakum allahu khayran runtii horta maanta waxaa loo dabaaldegayaa maalintii biyaha adduunka waxaa laga yaabaa dad badan markay yidhaahaan waxaa loo dabaaldegayaa maalinta noocaayo noocaasa inay si gaara u arkaan laakiinse waxa weeyaa maalin mudan in loo dabaaldego biyaha soomaalidu way mahmahda waxay tihi biyuhu adduunku way waa 1 iyo 1 kowdu bay yidhaaheen waa biyo 1kuna waa wixii ka soo hadhay markaa maalin wax ka badan bay in loo dabaaldego way mudan tahay laakiinse dabaaldegeedoodu maaha maalin qura in lagu soo koobaye micnaheedu waxa weeyaan maalintan iyada ah inay caalamku dawladaha iyo caalamka oo dhan iyo deeq-bixiyayaasha iyo inta adeega bulshada ka shaqaysa ay isla eegaan maalinta sanadkii aan soo dhaafnay iyo sanadka soo socda maxaa isbedel ku dhacay adduunka biyihiisii maxayn horumar gaari karnaa maxaa inoo qorshaysan in la isla eego ayuunbaa loo asteeyey wax gaara maaha sidoo kale waxay fursad u tahay in dadweynaha ka faa'iideysta biyaha amba magaalooyin ha joogaan amba miyi ha joogaan fursad ay u tahay inay la xisaabtamaan amba dawlad ha noqoto amba hay'adaha ha noqoto ciddii biyahooga gacanta ku haysay la rabay adeeg bulshada siiso ayay fursad u tahay maalintani haddii dadweynaha soo fahansanaan lahaayeen dawladda iyo hay'adaha adeega bulshada bixiya toos bay ugu tagi lahaayeen maalintan odhan lahaayeen maxaad noo haysaan sidoo kale waxay fursad u tahay inay isla eegaan isla jaan qaadaan dawladihii iyo maxay tolooyeen hay'adihii bixinaya adeega biyaha wadankeena aan joogno waxaan moodaa in biyuhu ay aad ugu yar yihiin iyo magaalaba laakiin waxaan ku hambaleynayaa magaalada Boorama gaar ahaan shirkadda Shaaba intii aan joogno Soomaaliland waxaan maleynayaa waa magaalada kaliya ee ka jira company biyaha maamula oo si hagar la'aan u maamula oo dadkiisii gaarsiiya oo ay magaalada dadka joogaan ay si fiican uga hagar baxeen waxaan oran lahaa dhammaan magaalooyinka kale ha ku daydaan iyagoo dawlad ahaan iyo shacab ahaan iyo maamul ahaanba isla eegaya sidii ay biyo fiican u heli lahaayeen shalay waxaan soo boqonay oo injineerka ama maareeyaha guud ee uu nageeyay taangi ay halka ka sameeyeen wuxuu ahaa taangigii ugu horeeyay ee aragnay ee aad u qurux badan ee quality-giisa iyo tayadiisa aan hore Soomaaliland looga arag aad u fiican aad arki kartid dadka reer Boorama inuu u yahay asad ilaa inta ay ka dhimanayaan maanta inta joogto amba ha ka shaqayso amba ha aragto tayadiisa laakiin noqon doonta qarniyada iyo jiilalka u soo socda magaalada Boorama inuu anfici doono wax loogu mahadnaqo weeyaan hay'adaha kala qayb qaatay dawladda Soomaaliland iyo maxay tolooy shaababa adeega fiican bulshadooda u qabanayso waxa kale sidoo kale ugu mahadnaqaya dawladdeena Soomaaliland inay mar walba meelaha ay ka duugsho iyo qorshayaasheeda fog iyo kuwa gadhow ay ku jiraan sida Soomaaliland ay uga xaq bixi lahaayeen miyiga iyo magaalada adeega bulshada sidoo kale waxaan mahadnaqayaa deeq-bixiyayaasha maxay tolay Soomaaliland ka caawiya in ay biyaha adeega biyaha horumariyaan ay ugu horeyso UNICEF oo aad iyo aad had iyo habeenba u taagan sidii dadkeena meesha fog ee miyada fog jooga ay biyo fiican oo tayo leh u heli lahaayeen dadkeena magaalada joogaana saaysan lamida magaalooyinka waaweyn ay u heli lahaayeen adeeg fiican runtii farxad bay noo tahay maanta inaan nagala qayb galno maalinta biyaha adduunka oo ah maalin loo asteeyay caalamka in laga xuso biyaha waad ogtihiin oo biyuhu inay yihiin nolosha koobaad dad badan baa ka soo sheekeeyay ama sida loo ogyahayba biyuhu waa nolosha koobaad innakana way naga sii xag jirtaa oo biyuhu waa dee nolosheennaba runtii farxad bay ii tahay mar labaad iyo mar saddexaadba inaan arko oon ku xusno halkan maanta Shaaba dhexdeeda maalinta biyaha adduunka shirkadda Shaaba oon ka sheekayn doono insha Allah laakiin xukuumadda Soomaaliland way ka go'an tahay in ay magaalo kasta helaan biyo nadiif ah in ay dadku helaan dadka Soomaaliland degan inay biyo nadiif helaan dadaalkeygana waa lagu jiraa qorshaha iyo barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiyana koobay ka ahayd lagamana seexanayo waana laga hagar bixin doonaa insha Allah taala shacabka Soomaaliland biyaha oo biyo badan bay heli doonaan waxa kale oo mahad celinaynaa inta aad ugu mahadnaqaynaa hay'adaha ka shaqeeya biyaha runtii ee ah maalgeliya ka caawiya Soomaaliland ee ugu horeysa UNICEF annagu aad u aqaano iyo hay'ado kale badan oo ka shaqeeya gobolka sida Germany iyo hay'ado kale badan Concern Worldwide hay'ado badan baa ka shaqeeya gobolka marka gobolka oo dhan maanta farxad bay noo tahay ma aha Booramo kaliya gobolka oo dhan hay'adaha ka shaqeeya iyo dawladda iyo isku duwaha biyaha
dhammaanteen annagoo gamcahays haysanaa si loo heli lahaa biyo nadiifa ayaan ku dadaalaynaa insha allah. haddaan intaa ku dhaafo runtii shirkadda shaaba waxaan anu goobjoog u ahaa isagoo jooga mas-uulka guud ee u sarreeya ee biyaha ka shaqeeya shirkadda unicef oon ku kulannay bajo aan ku kulannay xafiiska maayirka maalin annaka iyo maamulka shaaba iyo maayirka magaalada isagoo noo sheegay inay shirkaddani tahay ma aha east africa oo keliya ma aha africa ma aha shirkad brefada oo biyo maamusha inay shirkadda koobaad tahay oo guddoonsiiyey oo yidhi inay shirkadda koobaad tahay ayaan u qiraynaa taana waxaan ku hambaleynaynaa shirkadda shaaba waana la shaqaynaynaa ka dowlad ahaan iyo ka wasaarad ahaan annaku waan gaadhsiinaynaa kolle iskuduyiina u joogaa wixii idiga dhiman iyo labada ceel baa insha allah waan ka dadaalaynaa hay-adaha deeqbixiyaasha sidoo kale aad baan ugu hambalyaynaynaa inayna iskeena garab istaagaan sidoo kale biyaha waa wax loo baahan yahay dadka maanta xanuunkan la sheegayo ee jira ee caalamka aafeeyey waxa koowaadee laga badbaadayaa waa biyo gamcahood dhaqdo jirhkood maydhato nadaafadooda laga shaqeeyo iyo si badan marka runtii waxaan aad ugu hambalyaynayaa shirkadda shaaba waxaan ku hambalyaynayaa biyaha hagarla'aanta ay uga shaqaynayaan iyo shaqaalaha madaalaha ay haystaan runtii xanuunada naafadiyo kadhigi kara naaquske xanuunada naafadiyo kadhigi kara naaquske naftiisa galafin kara intay noloshiisa wiiqin talaalka nabadgasho ka hortaga nuxuusyadiisa intay noloshiisa wiiqin talaalka nabadgasho ka hortaga nuxuusyadiisa cuntada noocuu helana lagu rido weel nadiifa nijaasa ka faraxashe kucune farahoo nadiifa